بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan dadka nala socdo oo caalamka dhammaan nagala socdo waxaan u soo gudbinaynaa halkan ugu soo gudbinaynaa sida flash disk loogu shubto file aad computerka ku diyaarsatay sidee baad flash disk ugu shuban kartaa haddii aad doonayso inaad flash disk aad file ku shubato marka ugu horeyso fileka flash diskiga ayaa computerka gelinaysa flash disk marka computerka gelisa kadib si automatic ayaa laga yaabaa inuu flash disk u soo kaco haddii uu soo kici waayana waxaa furaysaa computer kadibna waxaa tagaysaa meeshan oo flashyaasha dhammaantood ama wax walba oo drives ay ku jiraan ayaa tagaysaa removable disk meesha ay ku qoran tahay waa flash diskiga marka aniga hadda flash diskiga waxaa ku jira failashaas haddaad rabtid marka inaad flash diskigaada aad file kale aad ku darto fileka aad ku dari lahayd ayaad dul tegaysaa adigoo computerkaaga ka furaysa badanaa failasha waxay isugu tagaan document waxaa laga yaabaa filekaaga inuu document ku yaalo ama desktopka inuu ku yaalo marka document ayaad tegaysaa kadibna waxaad raadinaysaa fileka aad rabtay in aad flash diskiga geliso tusaale ahaan anigu hadda waxaan gelinayaa filekan lagu magacaabo access programming right click aad dhehaysaa kadibna copy ayaad dhehaysaa kadibna flash disk ayaad dhex tegaysaa right click ayaad dhehaysaa mar kale kadibna paste ayaad dhehaysaa sidaas ayaa flash disk u gelin kartaa waxaa kaloo samayn kartaa haddii aad rabto inaad gelisid kan oo kale inaad tusaalahaan filekan oo kale oo desktopka saaran ayaad rabtaa inaad flash disk geliso right click ayaad dhehaysaa mar kale markaa right click dhahdo kadibna waxaad dhehaysaa send to waxaad tegaysaa send to markaa dhahdo kadib waxaad tegaysaa meeshaas ay removable disk ay ku qoran tahay click ayaad siinaysaa sidaasna flash disk ayuu ku galayaa filekii aad rabto inaad flash diskiga aad geliso qaybtani sidee flash disk file loogu gelin karaa intaasi ayaan kusoo gabagabeynaynaa waxaana su-aashaan ina soo weydiiyey macalin cabdikariin